جماعات كدعوة وكون جولات كسميان مقتل لها مقاحية لقو قيلايو جماعات باكستانيين أمريكا نوتي من ديو وضيوا أكوين أمريكا أنكم بقول إسلام باني محانا قصود دون تيبون وعد بقول إسلام باتين إن باكستاني عالم وحكمة بضنبوها ومفتيح ومدارس آدو فربضنا هي وعد بقول مسلم باتين ونقنا وكفر أحسن هي لكن بقول مسلم باتين محاد كبيهين المساجد كدبدي سوق صداف ويدين بكوي كما هي الله يلا عليها قبل شيء كده نبى مالين مساجد بانقلي بيودي جمعي هراء يقبحي جمع اللبات بان مركا أركب بيودي مركا مد أنا أجاجي مساجد وينو جامع أبوها وجموتو كي يلا مد بان مركا يقولي جمع لبدا قفاي مكاسكو خدته لا خدو markaasana la xidhay buudi kabahaygi meel aniga fogeeno halkaasaan dhigay buudi kabeero cusub oo sandala salaadii mar alle markaan xidhay baan arkay buudi kabtaydiyo kabtiyo gacan si qaadayso waska waday buudi salaadaydi safkiina uu dheeraaday salaadii mar alle markaan salaamu calaykum ka baxay ayaan kabihi baan waayay markaasa waan eegay waan waayay qofka sii baxay waan waayay ku kalo igu ag tukanayay anaka bahayga ma hayo malaha shan lix qof baan noqonay safka oo kaliya dadkii kaba hogi waayay nin markaa masaajidka xaaris ka ahaayo ilaalinaya xagga dambe maxaan helay war shanteedaba kabi wala naga qaaday markaasa nin baa yiri allabadan dadka way sareen buudi Allah ka qabto kii ku tujinayay kii ni tujinayay iyo kii ku tilmaamay shaqa ka wada dhaxaysay buudi waxa ka dhaxaysay balsheeg wala fiirso iimaankeena halka uu maraya ka warrama in masaajidka dhexdeeda dadka loo rakibo riwaayada loo rakibo kaba dadka lagu xado داخل المسجد نبي عليه الصلاة والسلام أيا سوق مدينة سقو مريا نن وحو أرك أور إبنيا مرقاس النبي يقول أور كما ديبيني سها إمس أنت ويهشيين مرقاب النبي كوري صرع أور قلعكت سيما كوسيني ونرر بادية ما قرن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مدينة وحو صوق لأور كاينو إبيو هوغانكي بو هيا رسولك دبا سودا markaa nabigu degdegay maadaama nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu socdaa maadaama safar ka soo galuu soo daalay aayar buu socdaa oo daba bildhaansanaya markaa nabigu soo daymoodo wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaa nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya ay dhigama iibsan markaa nabigu waan heshiinay tamal bay qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya in lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yiri may igama iibsan markaa nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer Madiina oo dhan ba ku soo ururay wala isku dhageysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igama iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan ka iibsaday waan ka gatay iyo igama gadan ninkii acraabiga ay war inaad iga iibsatay marxaati ma haysata markaa uu nabigu dadka sidaa u eegay khuzayma ibn thabit nin leeyda oo reer Madiina soo boodo ila ana marxaatiya buu inuu nabi maxamed alayhi salatu wassalam uu iibsaday maragtaana awrka inuu ka iibsaday ana maraga furaaya markaa uu nabigu sidaa weeyay khuzayma markaa ninkan kale iibsanayna meesha ma joogine seed marxaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yaa rasuulallah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu ku keenay baan ka rumaynay ma bini aadan aad baan u sheegay buu yiri ما هذا ما بيعك أدونك إن دح مريبات بينك شيء إن كئيب ستي وحن كل رميستي تريد تري وان كئيب ستي أنت ما كنت صدقي بودي مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام حيري ما أنت لقى بلا خزيمة ابن ثابت
khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka 2 nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn 2 nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii meesha qafladda badan la waa laga yarbaxaa maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen markaa buu nebigu ku yidhi bilaalow waan yar daalanahay halkana waan seexanaynaa waa ku nasanaynaa caawe salaada subaxidayna dhaafina noo kici buu ku yidhi bilaalna hurdadii baa la tagtay radia allahu canhu cadcaadiyo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu calay wasalam bilaaloo hurdana waa la kiciyey nebigaa kiciyey bilaal maxaa ku helay yaa rasuul allah allaha naftiinni niga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi way tukadeen markaasuu yidhi meeshan waa meel khafladeede inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara buu ka yidhi halkaa u guura meel salaad keliya ay ku dhaaftay hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto ha ka guuro meel 100 salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankeyga bal ka warrama dadka muslimka dhul muslima intay ka tagaan dhul gaala u socda u guurayna ka warrama hal salaad meelay nebiga iyo saxaabadiisa ku dhaaftay iyagoo khaarijiina oo ilaahay diinkiisa u socda hadduu nebi maxamed uu yidhi meeshan qaflad baa inagu haleeshay ee hanbadallo meesha 10 salaadood nagu dhaaftay ka warrama markaas soo inaan ka yar baxno soo maaha waa inaan ilaahay darta u baxno markaas 4 bilood 2 bilood 40 cisho bisha fasaxa ardayda macallimiinta shaqaalaha dadkeena faraaqa haysta haddaad khayrka camiri weydo ood masaajidda camiri weydo maqaayadaad camiri haddaad culummada iyo ducaadda higilka siini weydo siyaasiyiintaad higilka siini iyo kuwa qabiil ka shaqaynaya haddaad dadka xagga ilaahay ugu yeedhi weydo adaa sharka lagugu yeedhi haddaad diintaada aad ummadda gaadhsiin weydo dhaqan kaleoo dadka leeyihiin ba adiga lagu soo gaadhsiin waanaad arkaysaan maanta mujtamaceena dhallinyaradiisa siduu eg yahay inteenan waa intii fiicnayd baa tiina khayrka jeclayd laakiin intay naga maqan ka warrama allaha soo geliya iyakana da inaan dacwadda ka wada shaqeyna soo diyaar ma nihin zubayr curwata binu zubayr buu ahaa taabicigii caalimka ahaa iyo jaliilka ahaa ay dhashay asmaa binta abi bakar waxaa la yidhi hooyadii baari buu u ahaa hal maalin baa lagu yidhi curwow adoo hooyadaa cunto la cunaya laguma arkine haddana saad hooyadaa baariga ugu tahay waan la yaabanahay maalin keliya cunto lama cunine maxay ku dhacday baa lagu yidhi waxaanu la cuni waayey baa jirta buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi luqmadda ay isha ku qabato inaan ka hor qaato oo aan cunoon caaqil waalideyn ku noqdaan ka baqay buu yidhi dalku ka fikiraya innakana hee islaantan yar qaylo badana haddaad hooyadaa ku tiraahda islaantan yar qaylo badana kaad adigu aad dashaa ku odhan doono waraabaha qaylo badana way dhacdayna taasi maanta inbaa sakhraan buu ahaa bale sakhraan habeen walba aabihii buu garaaci jiru dili jiray markaa jaarka u soo baxoo ka celiya warduqa iska daa habeen habeenada kamida kolkuu khamrigii ka soo dhargay ayuu intuu yimid scotch alcohol buu afka kaga dhajiyey degtuu ku qaatay magaaladii buu kala baxay bannaanka markuu la baxay buu ka furay baa la yidhi afkii kolkuu odaygii dhiman gaadhay wuxuu yidhi aabba naqaskaad igu dhajisay waa adiga maanta magaaladii igala soo baxay halkeed igu wadaa wuxuu yidhi qudhaan kaaga jarayaa buu yidhi maanta waa sakhraan markaasuu yidhi ma inaad dishaad ii soo saaratay haa geedka hay dhaafinahu igu hoos dil buu ku yidhi geedkaas sakhraankii baa ku yidhi geedkan maxaad u dooratay ii sheeg wuxuu yidhi waa kii aniguna aabbahay aan hoostiisa ku dilay buu yidhi waa waxaan geystay
sidaad waalidkaaga maanta aad u qabato ayaa adigana ilmahaagu ku qaban ugu curwata bin zubayr waxaan hooyaday cuntada ula cuni waayey luqmadda ay tamacday isha ku qabato inaan ka hor cuno oon caaqul waalidayn ku noqdaan ka baqay buu yidhi maalintay dhimatana sida ilmaha yar buu u ooyey markaa baa lagu yidhi yaa curwa asxaabu rasuulillaahi raggii waaweynaa baan weynu naga dhintay umaan ooyine waa sabirnee maxaad hooyada aad ugu ooyeysaa baa lagu yidhi sidan wuxuu yidhi hooyo dhimashadeedu waa xaq lama ooyaya buu yidhi arrinkaas waxaan la ooyaa nin sheegi buu yidhi hee albaabadii jannada ka mida looga gelaayey ayaa iga xidhmay buu yidhi maanta oo iga xidhmoon la ooyayaa buu ka yidhi samafalka hooyaday aan u samafalayo baarinimada hooyaday aan u noqonayo baari waxa weeyaan buu yidhi maaragtaanay waxa weeyaan albaabadii jannada ka mida looga gelayo weeyaan lidaalika walaalayaal aadaabta islaamka hambarano waalidadeena dhaqanka islaamkaan kula dhaqanno abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa arkay inan yar oo oday ka da'weyn hor socda markaa buu abaa hurayra uu joojiyey joogso waryaa odaygan muxuu ku yahay buuhi markaas waa aabbahay buuhi ma aabbahaba haa odaygii buu ku yidhi yarkeer maxaad u tahay adiguna waa inankaygii buuhi kii ugu yara carruurtayda markaa buu yidhi dhegayso yaroo dhegayso buu ka yidhi aabbaha markaad la socoto ha hormarin hortii ha socon hortay ha fadhiisan hortii ha hadlin aabbaha markaad la socoto ama qofka weyn aad la socoto ama waa laga dambeeyaa ama waa la hareer socdaa hadduu waalidkaagu meel uu damco inuu fadhiistana lama hor fadhiisto dad hadduu la hadlaayana hortii lama hadlo hadduu waalidkaagu kula hadlaayana lama eego wejigiisa dhulka la eegaa buhi dhulka aadaabtaasi dhaqanka islaamkaana baray buuhiye adiguna baro oo ilmahaagana u sheeg dadka kaleed aragtana u sii sheega buu ka yidhi akhlaaqda islaamku waa taas mar keliya unbaa qofka da'da weyne waalidkaaga la hormari karaa hal mar keliya unbaa waalidka laga horrayn karaa bay culimmadu leeyihin waa markee waa marka waalidkaaga aad uga baqdo xagga hore cadow inuu kaga yimaado unbaa la hormari karaa bas abu bakr sidiiq radia allaahu canhu isagii nebigu sal alla alay slam markay hijroonayeen dariiqa alhijri ay socdeen abu bakar marna nebiga xagga horuu ka maraa marna xagga dambuu ka socdaa markaa buu nebigu ku yidhi ya abaabakar marna xagga horead iga martaa marna gadaal baad iga martaa isee waxu jiraan xagga hore markaan kaaga baqana ee shikiyo een is idhaahdo xagga hore bilow cadow kaga imayna waa ku hormaraa xagga dambe markaan kaaga baqana waa ku daba maraa buui xagga dambaan kaa maraa qofka karaamada leh ee kaa da'da weyn leh hadduu caalim yahay hadduu waalidkaa yahay hadduu adeerkaa yahay hadduu qof kaa da'weyn yahayba aadaabta islaamku ayuu leeyahay kula dhaqma nin sheekoo culummadeenna ka mid a ayaa maalin mawduuc cajiib uu ka hadlay wuxuu yidhi nin gaala oo qoraaya ayaa buug buu qorayay ilmihiisii baa mashquuliyey wuxuu damcay ilmahan inuu isaguna iska mashquuliyo khariidad caalamku ku qoran maab waad fahmaysaa khariida sooma iyuu soo qaaday uu jexjeexay uu kala daadiyey wuxuu yidhi aabba khariidada sideedii ku soo celi waxaad doontaan ku siinay waa ilmo yar ismale uu isku keeni doonaa markiiba intuu qolkan la galay buu ilmi yaraa isku keenay uu soo koolay kool buu soo mariyey scotch markiiba uu keenay aabbihii wuxuu yidhi ma hooyadaa baad ula tagtoo kuu sheegtay may anaa sameeyey ma walaashaa baad ula tagtay iyadaa jaamacadda dhigatoo taqaanay waddannadu se isku xigeen oo isku keentee may aabba anaa sameeyey yaa sideed u garatay ii sheeg waxaan ugu talagalay hayd buu yidhi saacada dhan inaad igaga mashquusho aniguna intaan wax qorayan ama wax akrinaayo wuxuu yidhi aabba xaggan unbaad adigu eegtay caalamku maabka caalamku ku sawiran yahe xagga kale sii jeedka qof bini aadana ku sawirnaa buu yidhi dee qofkii unbaan isku geegayey buu yidhi gacantii lugtii xaggan soo ma hadde xagga markay sax ii noqoteen isku dhajiyey xaggii dambena maxay noqonaysaa sax ninkii qoraa buu ahaa wax qoraya buuq dhan buu ka alifay baa la yidhi wuxuu yidhi caalamka in la hagaajiyo waxaa ka awlaysan in bini aadanka horta la hagaajiyo hadday bini aadanku hagaagaan caalamkuna marka bini aadanka maxaa hagaajiya markaa bini aadanka diinun baa dhista marka dalka in la dhiso waxaan uga baahi badannahay dadka in la dhiso
وانا ماشي نبي محمد وكبل عليه الصلاة والسلام والله دتكو هدي دد نمدودا inoo soo noqoto noloshii hore baadiyaha man ku noolaana innaka dad nimo fiican haysano umada ugu sarreeyna ogaada markaasay tiri may kala xasha hay wax sir aanu nagama sido ma sir baad naga wadaa inagama sido markay qof run u sheegay iska dhigtay ay labadoodii ka soo noqdeen baa leeyahay kolka in yar soo noqdeen ali baa yiri oo ma warkeegan rumaysanayo warkii nabigan beeninay buu yiri nabi maxamed baa nagu yiri sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirta ka soo qaada maadaama nabi maxamed uu yiri ma warkeegii inta rumaynay ayaan warkii nabigana been ka soo qaadnaa buu yiri soonaka halaagsanay maadaama sida ku noqono ali baa ku soo noqday oo ku dhiirado yiri sirta aad naga wadid nabi maxamed baa ku sheegay haddaad sirta halkaas soo dhigi weydid gacmahayga kula iman buu ka yiri markay aragtay labadan dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nabi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tiri ii kaadiya hadaba intay sii jeesatay mar timihii intay furtay timihii tadcana ayaa warqadii taale ka soo saartay warqadii bay nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam ya rasuulullah waa tan gabadha sirtay waday warqada ninkii qoray masaajidka nabigu dhex fadhiya xalaqadu dhageysanaya waa la furay waa la akhriyay risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi balta'a waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa ka waramay marka uu quraysh uga waramaya sirtii nabi maxamed sirtii ciidanka dawladda islaamka sirteedii buu gudbiyay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midabkiisa bedelmay rasuulka halkan umar baa joogo markiiba kaco yiri ya rasuulallah nikan munaafiqeen nagu jira ee sirteeni galada u sheegayay ana qoorta ka goynayay ugu fasax buu ka yiri markaa uu nabigu umar u kaadi degdegin ya xaatib labbayk ya rasuulallah saasu leeyahay labbayk ya rasuulallah saraka buu ka yiri ustaag sirteena inaad galada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal sheeg buu ka yiri wuxuu ya rasuulallah waan sheegay runtana waan sheegay buu yiri raga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacayo ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkayga iyo reerkayga baa quraysh kaga dhaximiday hadii waxaan is-iri haddaad inta yaroo sir ah aad gaalada u sheegtay qurayshta waxay is oranayaan xaatib inniku inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasuu baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nabi allah sirtaada sababtaan u sheegayna taasuu baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yiraahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogay reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam ila ninkan dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku galada u gudbiyay markaas nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi surati al-awail surati al-mumtahin ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah ila akhir al-ayah suurada awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadeeyay inuu ninkani xaatib uu kamid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabiga rumaysan inuu kamid yahay buu ilaahay cadeeyay iimaankiisa baa ilaahay cadeeyay iimaan baa loo marxaati furay inuu muumin yahay markaas looga digo la yiri ka isagoo kaliya maahine bal muuminiinta oo dhan waxa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogi iyo cadowga ilaahay cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaabo markaa buu nabigu umar buu eegay ya umar xaatib waa kaasoo quraankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo quraankii baa cadeeyay iimaankiisa dambiga uu galayna
إنه دب دم بوجن قلنا والله قدقي لكن عمره واحد أجين أهل البدر بوها نكن والرب بدر وصدح بغل صدح يتوبن كينن إيه دقال كبدر قال قيب قشي وياه أهل البدر إنما تغنى درجة دودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر واحد دونتان بالسمية إني قدم بيجيني والله دافع واحد دونتان سمية معنوه ما هن ذنوبته كلها عماها نك بدرجة هدو قفنا بالليلي ودنبي كدعنا سوء الخاتمة كل من مايه حسن الخاتمة كل من دون أمرك ودم بيس لأن مالين تاسع إلى حي أقبلين مالين تترى مسلمين تأيري قالوا دونا أي صوت دولين يكون الدجال كنت لقلين أي النبي قصار معركة بدر أين يسوق قبطان عير قريش دجالوا ما يجيدين لكن إلهي ما قدر دجال ماشي إنه كدعوا وحي لي مادن يطبي لي مادن دينتين دفاعيا حتى نزل جبريل عليه السلام مالما كمذا جبريل بسود يري ما تعودون أهل البدر فيكم يا محمد رجع دجال كبدر كالا قيب قلي أكتينا قيمة هاي كليهم بليشك وهالكين محات وأركتان مركز النبي يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تكون وقفل لبدن إليهم أنو أرقنا برسولك يري مركز جبريل يري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوك لأنكم هدان ملائكنا هاي ملائكتي دقال كبدر صودا دعدين نقالك قيب الشيء وحال الله أركا إليهم كوا ملائكته وقفل لبدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها من نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رجع ساقرت قدرك رسولك قدرك نبي محمد بيقرتين مكانة دي سي بيقرتين وسلاني بدأ نبي كلها